isugu yimaadaan dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya iyo dhinacyada ka horjeeda. khudbado kala duwan oo fadhigaasi laga jeediyay ayaa la isku tusaaleeyay dhibaatooyinka ay leeyihiin dagaalada iyo waliba wixii ka dambeeyay dabayaaqadii 2006 dagaaladii ka bilowday dalka Soomaaliya inay ahaayeen kuwii ugu saameynta badnaa marka loo eego 16 sano ee ka horeeyay. dagaaladaasi ayaa la sheegay in raadadkooda ay weli si aad u muuqanayaan marka loo eego baa la yiri kumanaan qoys oo ka carray dagaalada magaalada Muqdisho oo haatan ku dhibaataysan inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye kuna dhow inay qoys gaaraan inay dib ugu soo laabtaan aqaladooda. guddoomiyihii guddiga dib u heshiisiinta qaranka ee horey loo magacaabay Ismaaciil Magayn howlihii loo doortay ay u muuqanayaan kuwa aan waxba ka qabsoomin marka loo eego dagaaladii waqtiyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sida xaaladda gobolka Banaadir ay noqotay. in wax iska bedeli doonaan qaabka bulshada Soomaaliya 19 sano dagaal ka jirtay dagaalo xubgoysa كمان هي معكتري معنا بدن له مرة بدن بقار كتيران بدن أنت شعب الصومالي وكذا ما هو شيء الكفار حتى الكفار هنا واحد بودا يوم يعمل أحسن في عمله. محدين حسن أفراح oo ay hogaan u doorteen qaybihii kala duwanaa ee bulshada rayidka ee halkaas ku kulmay ayaa isna waxa uu carabka ku dhuftay inay u istaagayaan in ay dhaxdhaxaadin dhex dhigaan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo dhinacyada hubeysan ee ka horjeeda. waxa kamid waxa uu horeeyay wax kasta qabanaa dib u heshiisiin Soomaaliya u garto qaranimo oo sidoo kale iska soo horjeedo kale oo dawladda iyo qoyinka ama diin ugu soo horjeedaan ma siyaasadda ugu soo horjeedaan dawladda ay in heshiisiino oo nabad fiirino aan ugu baaqayna annagu dhinacyada ishaayo dhan saasaan ugu baaqayna deegaanada Banaadir kale wada xataa noqon maayaan dadka aan dariska nahay oo walaalaha oo Soomaaliyeed oo wadilada ay ku jiraan qaarkood waana sii soconaa waxaan rabaa inaan gaarsiino heer Soomaaliyeed oo ay Soomaaliyeed go'aan qaadan karto. ma aha markii ugu horeysay oo kulamaynkan oo kala ay ka dhacaan magaalada Muqdisho kuwaas oo looga arinsanayo sidii loo dhameyn lahaa xasaradaha ay sababayaan dagaalada ee ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir. Abdulqaadir Umar Cabdulle, Universal TV.